dadka qaar balantu way jabiyaan sida roobka oo kale, waxayna yimaadaan waqti aan laga filinayn. marmar dhib ayay ku geystaan imaatankooda. roobku inta badan wuxuu ku yimaadaa si kadis ah, mar wax buu burburiyaa, laakiin doog ayuu inooga tagaa. dadka sidooduba waxay leeyihiin calaamadaha cimilada oo kale. assalaamu calaykum. 3 siyaabo ay dadka balanta ula dhaqmaan oofinteeda. waxaan ka baranaynaa qoraxda, dayaxa iyo roobka. dadka qaar waa sida cadceed oo kale, mana yaqaan balandarada. qoraxdu galabtii way ka tagaysaa iyada oo ku balan qaadaysa in britol ay soo laabanayso. bal ka waran haddii soo laaban weydo, maalinta xigta sumud ma noqoteen. balandaraduna waa sida oo kale. dadka qaar balanta marna way oofiyaan, marna way ka baxaan, sida dayaxa oo kale. dayaxu markuu uu waagu bariyo wuu ka tagayaa, isagoo uu ku balan qaadaya inaad habeen dambe aad kulmaysaan. laakiin habeeni badan oo gudcur ah ayaa jiri doona oo aan soo bixinba. dadka qaar balantu way jabiyaan sida roobka oo kale, waxayna yimaadaan waqti aan laga filinayn. marmar dhib ayay ku geystaan imaatankooda. roobku inta badan wuxuu ku yimaadaa si kadis ah, mar wax buu burburiyaa, laakiin doog ayuu inooga tagaa. dadka sidooduba waxay leeyihiin calaamadaha cimilada oo kale. si kasta oo dadka qaar ay u kulul yihiin sida qoraxda oo kale, haddana waa kuwa ugu wanaagsan insaanka xagga runta, balan oofinta, ixtiraamka iyo wixii la mid ah. si kasta oo qayb dadka ka mid ah oo iftiimayaan una qabooban yihiin sida dayax oo kale, haddana waa kuwii ku cidlaan lahaa waqtiga gudcurka ah. si kastoo dadka badankooda deeq inoo siiyaanna noloshana ugu xiran yihiin sida roobka oo kale, haddana waa kuwii in dhibaateen lahaa oo ina halaagi lahaa ama abaarta inugu daawadan lahaa. walaalayaal, ugu dambeyn waa inaan ilaalinaa balanta. diinteena islaamka waxay marar badan ugu dhiirigelisay balanka inaan ilaalino, taas oo la gaarsiiyay heer munaafiq lagu tilmaamo. qofkii aan oofinteeda ku dadaalin, afkaaga adaa faraha u haya, ay wixii aad balan qaadayso miisaanka saar. assalaamu calaykum.